kulan waxaan wanaagsan ilaantiin baa khiyaarta hawada nagala socota ee isku soo dhaqo wanaagsan iyo muuqaal hor leh qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan hadduu allaha awood loo ogolaadana waxaa ka mid ah dagaal culus oo maanta dib ugu qarxay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. madaxweyne xasan oo ka mahad celiyay dal aan la filayn oo boqolkiiba 67 ka cafiyay deynta Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga oo ciidamo cusub tababar heer sare ah u soo xiray maxkamadda gobolka oo Muqdisho ka wada qasab fulinta qarar soo baxay. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo aan dul istaagi doonaa soo dhawaad muuqaalka sii sheegaya haddii tahay markii ugu horeysay soo booqatana fadlan subscribe dhoo gambaleelkana furo ku mahadsanidin. aynu ku bilownay waxaa maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool laga soo warinayaa inuu ka dhacay dagaal xooggan oo u dhexeeya ciidamada maamulka Somaliland iyo waliba sidoo kale kuwa xaq u dirirka ee ACC. dagaalka ayaa waxaa lagu soo warinayaa inuu bilowday saaka barqadii waxaana labada ciidan ay isku fara saareen aagga Goojacde. sidoo kale dagaalka ayaa waxa uu ka socdaa markaasi tuulada Dhamasaar iyo waliba sidoo kale tuulo Samakaab oo halkaasi ay ku dagaalamayaan labada ciidan. dagaalka ayaa markaasi waxa uu ka socdaa 3 jiho waxaana lagu soo waramayaa ilaa haatan inuu socdo dagaalka labada dhinacna ay isdhaafsanayaan rasaasta noocyadeeda kala duwan. macda war rasmi ah oo ka soo baxay dhanka Somaliland oo ku aadan dagaalkii maanta dib ugu qarxay halkaasi iyo inay guul ka sheegatay, balse dhanka ACC ayaa iyagu waxay sheegtay markaasi inay dagaalku qaadeen sidoo kalena ay ka soo hoyeen guulo wax ka ool ah. dhawaan ayay ahayd markii garaadka guud ee beesha dhulbahante uu ku dhawaaqay markaasi in ciidamada ACC Khaatumo ay dagaalka toos galaan sidoo kalena ay xiraan meelaha uu saadka u soo maro ciidamada Somaliland. ayaa waxay ka dhigtay markaasi in mar kale maanta dagaal uu halkaasi dib ugu qarxa oo u dhexeeya labadaasi ciidan. warar kala duwan ayaa ka soo baxay dagaalka sidoo kale waxaa la soo warinayaa markaasi dhimasho iyo dhaawac intuba, balse ma cadda tirada rasmiga ay tahay. wixii ka soo kordho dagaalkaasi halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa iyo faahfaahinta rasmiga. dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada Jidda ayaa shalay kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq mudane Maxamed Shia al-Sudani. labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka amni, siyaasadeed, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ciraaq. madaxweynaha ayaa waxa uu ka mahad celiyay dowladda Ciraaq deyntii ay ku lahayd Soomaaliya boqolkiiba 67 inay ka cafiyeen, waxaana labada dhan isla gaarteen oo soo noolaynta heshiisyadii hore ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Ciraaq sida lagu sheegay bayaan ka kooban oo ka soo baxay Villa Soomaaliya. madaxweyne xasan sheekh ayaa ugu dambeyntiina waxa uu ka codsaday dowladda Ciraaq inay Soomaaliya la wadaagaan khibradooda ku aadan la dagaalanka argagixisada maadaama ay guulo wax ka ool ah ka gaareen dagaaladii ay la galeen kooxaha argagixisada. si kastaba dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo soo waday dadaalada looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay dalka, iyadoo dowladda xasan sheekh ay qaaday tallaabooyin muhiim u ah barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya. deynta Soomaaliya lagu leeyahay ayaa loo qiyaasaa in ka badan $5 bilyan iyada oo qaanbixiyaha ugu badan uu yahay Mareykanka oo dhiibay adduun lacageed oo dhan $1 bilyan. wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in heer gabagaba ah uu marayo barnaamijka deyn cafinta xilli uu socdo qorshe ay dowladda ku dalbanayso deyn hor leh marka soo idlaado hanaanka deyn cafinta ee socda. isku soo wada duduub waxaa xilligan si habsami leh u socda barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya iyada oo ku gudubtay hanaankii dib u eegista shanaad ee barnaamijkan, isla markaana la qorsheynayay in dowladda ay qaadato deyn $100 bilyan ah. dhanka kale wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa maanta tababar dalka Uganda u soo xiray urur gaar ah Special Force oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka. ciidamadan cusub ayaa qaatay oo soo dhameystay tababar heerkiisa aad u sarreeyo kaasi oo muddooyinkii dambe ku qaadanayeen dalka Uganda. wasiirka difaaca dalka ayaa munaasabadda soo xirista tababarkan kula dardaarmay ciidankan cusub ee maanta tababarka uu soo xiray. Soomaaliya ayaa rabtay inay dhameystirto diyaarinta ciidan ku dhow 15,000 askari sanadkan aan ku jirno ee 2023 sida uu kol hore shaaciyay madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. imaaraadka carabta ayaa iyadu bixinaysa kharashka ku baxaya tababarka ciidamada lagu tababarayo dalka Uganda, iyadoo arrintan qayb ka tahay heshiis iskaashi oo imaaraadku ku taageerayo dhismaha dowladnimada.
madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa dhawaan qiray in imaaraadku uu Soomaaliya soo garab istaagay xilli ay aad u baahnayd ayna tahay in sida ugu habboon looga faa'iideysto fursadda uu siiyay dalkeena iyo kuwa kale caalamka ahba ay la garab taagan yihiin. Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa horey u gaaray heshiis iskaashi oo si gaar ah u quseeya dhinacyada iskaashiga militariga, amniga iyo la dagaalanka argagixisada, kaasi oo uu qalinka ku duubay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya. Heshiiskan ayaa dowladda Soomaaliya ka caawin doona inay abuurto ciidamo ku filan si ay si buuxda ula wareegto howlgallada amniga ee ATMIS si waafaqsan aragtideena amniga. Bilooyin ka hor ayay ahayd markii ciidamadii ugu horreeyay ee lagu soo tababaray dalka Uganda ayaa la keenay magaalada Muqdisho, kuwaasi oo tan iyo intii ay la wareegeen ammaanka caasimadda wax weyn ka beddelay, iyadoo ay aad u yaraadeen qaraxyadii iyo dilalkii ka dhici jiray caasimadda kadib markii ay kordhiyeen baaritaanada. Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirta xaalad dagaal, waxaana qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka ka socda howlgallo ballaaran oo ka dhan ah kooxda Al-Shabaab, iyada oo dhowaan uu si rasmi ah u bilaaban doono wejiga labaad ee dagaalka oo ay qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska. Dhanka kale, maxkamadda gobolka Banaadir ayaa weli waxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ka wadaa sabab ku dhaqangelinta xukunnadii hore ee uga soo baxay. Gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Cali Maxamuud Dabaan ayaa maanta ku wareejiyay dadkii lahaa dhul cabirkiisu yahay 20 ilaa 5 kaasi oo muddo si sharci darro ah loo haystay, iyada oo si khasab ah ay maxkamaddu u fulisay xukunkan oo muddo soo jiitamayay. Dhulkan muddo ayaa laga haystay oo lagu tasarrufayay. Maanta waxaa Ilaahay suurtageliyay in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay la wareegaan xaqoodii ay lahaayeen, iyadoo booliska Soomaaliyeed ay ka shaqeeyeen burburinta dhulkan si loogu wareejiyo dadkii lahaa, ayuu gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay inay bilaabatay khasab ku fulinta qaraaradii hore ee uga soo baxay maxkamadaha, isla markaana ay asbuucyada soo socda fulin doonaan 10 gal oo ka soo dhamaaday maxkamadaha. Dadka dhulalka laga fulinayay ee sheeganaya in cadaalad darro lagu sameeyay ma jirto cid cadaalad darro lagu sameeyay ee ciddii ka caawinaysa fulin lagu sameeyo maxkamadda ayaa iman karaan. Gudoomiye Dabaan ayaa ugu dambeyntii waxa uu sheegay in aan loo dulqaadan doonin in wariyaasha ay sheegaan in dowladda Soomaaliya ay maxkamadaheeda cadaalad darro ka jirto, isla markaana sharciga lala tiigsan doono ciddii gudbisa wax aysan caddayn u haynin. Wariye kasta oo qadaf u geysta hay'adaha dowladda waa lagula xisaabtamayaa. Wariyihii dhaha dhulkaasi cadaalad darro ayaa lagu burburiyay, waxaa laga rabaa inuu keeno caddeymaha, haddii uu keeni waayana asaga ayaa eedeysana noqonaya. Maxkamadda gobolka ayaa hore ugu wareejiyay dadkii lahaa sidan oo kale guri dhexaltooyaha, kaasi oo 33 sano si sharci darro ah loo haystay, iyadoo xilligaasi si khasab ah ay maxkamaddu u fulisay xukunkaasi. Si kastaba, maxkamadda ayaa waxaa xilligan ka go'an meelmarinta xukunnada hore ee u dhacay ee dhulka, kuwaasi oo waqti badan qaatay inay dhaqan galaan, balse xilligan ay meel marinayaan iyagoo adeegsanaya awoodda ciidanka booliska. Dhanka kale, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo haatan ku sugan magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kulan muhiim la qaatay dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan. Kulan duceedkan ayaa waxay labada dhinac uga wada hadleen xiriirka labada dal ee Soomaaliya iyo Sacuudiga iyo kobcinta iskaashiga labada dhinac, sida lagu yiri bayaan ka soo baxay Villa Soomaaliya. Kulankan ayaa sidoo kale waxay labada mas'uul uga wada hadleen gulufka dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, kaasoo ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku wadaan gobollada dalka. Kulanka Xasan iyo bin Salmaan ayaa ka mid ah kulan duceedyo uu madaxweynaha Jamhuuriyadda la qaadanayo madaxda kala duwan ee qaybta ka ah ururka jaamacadaha Carabta oo maanta shir uga furmay magaalada Jidda. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sidoo kale maanta halkaasi kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mudane Maxamed Shiic Al-Sudaani. Kulankaas ayay waxay labada hogaamiye uga wada hadleen xoojinta xiriirka amni, siyaasadeed, dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Ciraaq, iyada oo madaxweynaha uga mahadceliyay dowladda Ciraaq deynta ay ku lahayd Soomaaliya oo 67% inay ka cafiyeen. Waxay labada dhan isla garteen soo nooleynta heshiisyadii hore ee uga dhexeeyay Soomaaliya iyo Ciraaq, sida lagu sheegay bayaan goor sii horeysay ka soo baxay Villa Soomaaliya. Si kastaba, Soomaaliya ayaa haatan ku jirto marxalad dagaal, kaasi oo haatan taageero caalami ah u raadinaya madaxweyne Xasan Sheekh, waxaana dhowaan la filayaa in dalka bilowdo wejiga labaad ee dagaalkan oo qayb ka noqonayaan ciidamo ka socda dalalka deriska. Dawladyaal muuqaalkeena intaasi ayuu ku eegyahay. Muuqaalkan xiga intaanu ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.